السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعن وناكسن دلانتي باقيات قيمها هي شرف مدن halkan waa ESTV codka horumarka iyo dib u curashada hadaan oo kala kala socotaan war wixii naga soo gaaray deegaanka dalka iyo dacallada dunida waxa si toos ah idinku waramaysa anigu ah Boongaas qodobada wararka xilitabinteena wareed ugu door karoona waxa kamid ah gudoomiyaha gobolka Jarar oo ay weelinayaan mas'uuliyiinta degmada Bilcilbuur ayaa xadhiga ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay qabalaha Gosololey كابنيتك دغمدا إلى هور شغاx ayaa wada hirgelinta qorshaha baabaco oo taariikhda markii ugu horeysay ee kabinetku degmadaasi hirgeliyay wax soo saarka beeraha qodobkan idinka hayna dalka dibadiisana waxa kamid ah Cyril Ramaphosa oo dhawaan si la yaab leh ugu guuleystay tartankii gudoomiyenimada xisbiga ANC ee wadanka Koonfurta Afrika ayaa sheegay in xisbigu si hagar la'aan u gudanayo xilka iyo waajibaadka loo idmaday waa saaqiyare waa qaar kamid ah qodobada wararka imika haatan u diyaar garooba qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan dhameystirkooda markale kulantu waxaan oo xiisa xambaarsan warkii oo dhameystiran gudoomiyaha gobolka Jarar ay weelinayaan mas'uuliyiinta degmada Bilcilbuur ayaa xadhiga ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay qabalaha Gosololey warbixin murtaas ku saabsan waxa inoo eegaya Jamaal Axmed qorshaha siyaasadeed ee wasaaradda caafimaadka dalka iyo tan deegaanka u dejisan ayaa ku salaysan ka hortag waxaana muuqata in isbedelka kobaca adeeg bixinta caafimaadka ee deegaanka maalin ka dambeysay soo tarayso iyadoo dadaalkaasna ay qayb ka tahay badqabka caafimaad ee bulshada haddaba waxa si meeqaam sare ah xadhiga looga jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay qabalaha Gosololey ee degmada Bilcilbuur ee gobolkaasi Jarar waxaana si wada jiray xadhiga uga jaray xarunta caafimaadka gudoomiyaha gobolka Jarar mudane Cabdi Cali متان maamulka degmada Bilcilbuur iyo kooxda taageerada taakuleynta xarumaha caafimaadka ee gobolkaasi Jarar waxaana kala soo qayb galay xadhiga jarkan xarunta caafimaadka bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan qabalahaasi Gosololey xadhiga jarka kadib ayaa waxay mas'uuliyiintu booqdeen goobaha adeeg bixinta kala duwan ee ay ka kooban tahay xaruntan caafimaadka halkaasi oo xirfadlayaashuna ka bixiyeen sharaxaad dheer habka ay ugu adeegi doonaan bulshada ka faa'iideysan doonta xaruntan caafimaadka waxaana ugu horeyn halka kula hadlay bulshada ka soo qayb gashay xadhiga jarka xaruntan caafimaadka gudoomiyaha gobolka Jarar mudane Cabdi Cali Mataan isagoona sheegay in ay farxad weyn u tahay inuu xadhiga ka jaro xaruntan caafimaadka ee qabalaha Gosololey ee degmada Bilcilbuur oo ah mid loo dhameystiray dhammaan qalabkii adeeg bixinta ee ay u fidin lahayd bulshada iyo cududii shaqaalahaba runtii maanta farxad bay noo tahay annaga iyo tiimkan xafiiska caafimaadka heer deegaan ka yimid iyo maamulka degmada Bilcilbuur iyo shacabka santarka Gosololey iyo dhammaanba degmada Bilcilbuur oo dhan oo ah mid loogu talagalay inuu adeeg siiyo inaan maanta xadhiga ka jaro shaqaalihii ama xirfadlayaashii oo gabdhiyo wiilal ah runtii dhisan xagga aqoonta iyo xirfadooda kana muuqato wadaniyad markay hadda nasiin hayeen warbixinta iyo tilmaamaha markaanu fiirino kormeerka markaanu ku sameeynaynay adeeg bixinta health centerkan ay diyaar ku yihiin waxay noqon markaa guul u soo hoyatay iyo farxad degmada Bilcilbuur iyo nawaaxigeeda shacabka ku noolba geestoodana waxa iyaguna ka hadlay kusiisimaha gudoomiyaha degmada Bilcilbuur aan hoggaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda degmadaasi Bilcilbuur mudane Fuaad Sheekh Xasan iyo madaxa xafiiska caafimaadka degmadaasi Bilcilbuur mudane Xasan Yuusuf Yaase waxaan hadaladoodii kamid ahaa maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay santarka mataqaanaa Gosololey ee degmada Bilcilbuur oo xadhiga mataqaanaa maanta si wada jir ah looga jaray gudoomiyaha gobolka Jarar iyo tiimka mataqaanaa caafimaadka ka socda heer deegaan taasoo mataqaanaa ay bulshadu baahi badan ay u qabtay oo hadda ka hor mataqaanaa ay u dhaweyd dhagax buur oo kale marka taasaan aad iyo aad mataqaanaa ugu faraxsan oo u soo dhaweynaynaa talabaad mataqaanaa bulshada waxaan kula dardaarmayaa iyadana in ay hantidooda ilaashadaan ku taxnaadaan saytahay uga faa'iideystaan maanta inaan halkan xadhiga ka jaro maadaama oo aan aad u baahi u qabnay health centerkan hadda ka hor hooyadii halkan ku dhalahayd waxaan u dhafrgelin jiray dhagax buur bulshadana darmaya maxaan ku dhahay inay ilaashadaan hantidoodan maadaama oo guryahan ay dawladda ugu talagashay oo ay dareemaan lahaansho inay dareemaan
dhankiisana madax kooxeedka kooxda taageerada caafimaadka ee gobolkaasi Jarar Mucaad Gambiye oo bulshada kula dardaarmay inay ilaashadaan hantidan isla markaana ay uga faa'iideystaan sida loogu talagalay geesta kalena bulshadii ka soo qayb gashay xarika jarka xaruntan caafimaadka oo aan waraysi la yeelanay ayaa sheegay inay u baahnayeen xaruntan caafimaadka isla markaana ay uga faa'iideysan doonaan xaruntan caafimaadka ee looga hirgeliyay qabalahooda Gosololey sidii loogu talagalay ugana mahadcelinayaan xukuumadda dawladda Soomaalida iyo Itoobiya waxaan ku dhashay faraqan inoo xiga ee bilcilka qarkiisa soke ayniga aan ahay wax walba aan ku soo maray qabaleega iyo degmada Bilcilbuur maalin ay ka fiican tahay waligay adduunka intaan ku noolaa maarag waxaan ilaahay ugu xamdiyeynaa marka hore marxaladda maanta aan joogno inaan ilaahay iyo dawladdeena iyo xukuumadda iyo xisbiga aan ugu xamdina weeyaan horta maadaama aan nahay bulshadii ku noolayd qasantarka Gosololey ee degmada Bilcilbuur waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol oo hambalyeynaa santarkan ka dhisan degmada qabalaha Gosololey degmada Bilcilbuur inaan ilaashano annagoo ka duuleynaa hantiganagi maadaama uu yahay hantiganagi maguuraanka ahaa inaan ilaashano heer santarka ka dhisan qabalaha Gosololey ugu dambeyntiina waxay kooxda taageerada iyo taakulaynta xarumaha iyo rugaha caafimaadka ee gobolkaasi Jarar si wada jir ah ugu wareejiyeen gudoomiyaha gobolka Jarar maamulka degmada Bilcilbuur adeeg caafimaad oo ugu talagaleen inay xaruntu u fidiso bulshada isla markaana uu soo diyaariyay xafiiska caafimaadka dawladda Soomaalida iyo Itoobiya Jamaal Axmed Ilkacase qabalaha Gosololey ee degmada Bilcilbuur ee gobolkaasi Jarar كابينتك دغمدا إلى هور الشجاع ayaa wada hirgelinta qorshaha baabaco iyadoo taariikhda markii ugu horeysay kaabineetku degmadaas hirgeliya wax soo saarka beeraha warbixin murtaasi ku saabsan waxa inoo eegay wariye Maxamed Cumar Ceelaabe jooyinka sanadka 2012 xukuumadda deegaanku qaatay ayaa ah qorshayaal badan oo la rabo in bulshada looga saaro saboolnimada kor loogu qaado noloshooda dhaqaale iyo isku filaanshaha qorshayaashaas waxaa qayb ka ah qorshaha baabaco oo ah mid lagu soo celinayo isku filaansho dhaba oo la gaarsiinayo bulshada iyadoo ay garab socdaan dhammaan adeegyada aasaasiga ee kaabayaasha dhaqaale haddaba dhammaan degmooyinka deegaanka horumarada kala duwan ee ka socda ayaa waxaa qayb ka ah qorshaha baabaco oo ah mid xoogga lagu saarayo dhanka ka faa'iideysiga kheyraadka ku duugan deegaanka haddaba degmada ila hor shagax waxaa ka socda dadaallo kor loogu qaadayo dhanka wax soo saarka oo qayb ka ah qorshaha baabaco maamulka gobolka iyo maamulka degmada ayaa kormeer ku tagay beeraha ay wada beereen maamulka iyo bulshada ka faa'iideysanaysa dhanka wax soo saarka ee degmadaasi kormeerkan oo warkacay gudoomiyaha gobolka Nago Mudane Axmed Aadan Axmed ayaa kormeerkan mid lagu eegayo beeraha degmadaasi ila hor shagax waxaan walajeedka kormeerkan warbaahinta uga warbixiyay gudoomiyaha gobolka Nago Mudane Axmed Aadan Axmed iyo gudoomiyaha degmada ila hor shagax Mudane Maxamed Cali kaabineetka degmada uu ka duulaya in qorshii baabacay ahaa biyo baad beer cilmi iyo caafimaad inay hirgeliyaan ayaa maartay beertan hada isku dayga waa tusaale wanaagsan oo lagu dayan karaa sameeyay marka waxa qorshaysan hada dhul beereedka in la ballaariyo waxa soo raacay tusaalaan feeding lotki sida aragtaan feeding lotki hada shaqadiisa socotaa xoolihii haday noqon lahayd geel iyo looda degmada dhaqaysa ayaa iyagana la iibiyay marka wax aad u wanaagsan arinta waxa aad ay muhiim ugu sii noqonaysaa ilo hor shagax ama ilo marka la yiraahdo shalay maxay ahayd waa inaan isweydiinade halkan waa halku cadawga ku dhumalaysanayay shalay waxa weeye in horumar laga fuliyo iska daay in la tagaayo adkayd in laga wada hadlaayo adkayd kadib dadaalku galay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya isla markaana dhidibada ugu asaasay ciidanka gaarka liga booliska halganka ay galeen ayaa maanta ma aragtay muwaaqirka ama kaabineetka degmada in ay horumarka ka fuliyaan u horseeday waa qorshihii baabaca aan ka qayb qaadanay mataqaanay qorshaha 2010 qadaarshanka ay xukuumaddu ay qaadatay ahaa beer biyo aan cadiya calaf ahaa taas oo lagu talagalay mataqaanay inaanu ku soo saaro calafkii xoolaha marka meeshuna waa degmada ilo horashay oo meeshii loo oran jiray ilo ee oo kale u baqti jiray maantana waxa ku taala beertaas ku taaladee waxa loo oran karaa marka dadaalkii iyo midhihii magaranaysa dadaalka faraha badnaa ee maskaxdii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya uu sameeyay waxa la arkaa meeshii oo kale ugu baqti jiray maantana beer ku taaladee dadku indhihiisa ku arkaa dhankooda shacabka oo dareenkooda cabiraya tilmaamay inay qorshayaashan si loogu talagalay uga faa'iideysanayaan waxa weeye meejan waxay ahaan jirtay meel oo mana waxay ahaan jirtay meel cid dad iyo dunyaba lagu dhamo waxay ahaan jirtay meel laga kala cararo oo daaq ku haro markii saban barwaaqadu tahay meel daaq ku haro daaqeeda waxa looga careeri jiray oon iyo dhibaato iyo baahi haddana magaaladii mashruucii biyihii ceelka intuba way isku qofalan yihiin alxamdulillaah rabbil caalamiin mallaan wadan oo mano hayshadu wadankan haan jiray
waddan geel uun gale ahaan jiray waddan dadku iyo socotada ku dhamada ahaan jiray waddan shuftada ku dhoomaalasato ahaan jiray maantana horumar baa la gaarsiiyey beertii baa tanaha intii kale la wada qodahayaa ceelkii biyo janaalaha kanaha xusbigii iyo dawladii iyo madaxdii iyo masaraakiishoo dhammaan nala soo horumar baa nala gaarsiiyey jidkii baa naloo soo qabtay biyihii baa kuwan hoo aad aragtid beertii baa afarta bayna garjaba eega qodaalkeedu inaga yahay haddaba shacabku wacyigeli badan laga siiyey qorshayaashan ayaa wada kamaya dhalinta qorshayaashaasi iyadoo ay maamulka gobolka iyo maamulka ay degmaduna mar kasta ku sameeyaan dabagal islamarkaana siiyaan taageerooyinka kala duwan ee looga baahan yahay waxaana qorshayaashan qayb keenee jooyinka xukuumadda u yaala sanadkan islamarkaana sii la rabay looga maya dhaliyo hoolka shirarka ee degmada Hargeysa ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay tababar kor loogu qaadayo tayada waxbarashada isla markaasina lagu kobcinayo garaadka aqooneed ee barayaasha luqadda Ingiriiska ee wax ka dhiga dugsiyada degmooyinka hoos yimaada gobolka Afdheer warbixin murtaas ku saabsan waxa inoo eegaya Cabdiqaadir Cali Kaadheeri waxaa loogu soo gabagabeeyay hoolka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Afdheer ee degmada Hargeysa tababar loo qabtay barayaasha ka howlgala dugsiyada waxbarashada dhammaanba degmooyinka gobolkaasi Afdheer tababarkan oo socday muddo 10 cisho ah ayaa waxaa loo soo gabagabeeyay barayaasha dugsiyada degmooyinka gobolkaasi Afdheer gaar ahaan barayaasha luqadda Ingiriiska ee wax ka dhigta dugsiyadaasi haddaba kulankan ay ujeedadiisu ahay sidii fahan dheer looga siin lahaa barayaasha dhanka akhriska qoraalka dhageysiga iyo weliba ku hadalka luqadda Ingiriiska maadaama ay tahay xirfadda gaarka u ah ee ku howlgala barayaashaasi ayaa waxaa gabagabadii kulankan ka soo qayb galay suuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Afdheer mudane Cabdi Maxamed Ibrahim iyo weliba Cabdiweli Axmed Yaasiin oo ka socday xafiiska waxbarashada heer deegaan iyagoona si wada jir ugu booriyay tababar qaatayaashu inay ka soo dhalaalaan waajibaadka kaga aadan qorshahani uguna dhaadhiciyaan sidii loogu talagalay dugsiyadii iyo goobihii ay ka kala yimaadeen aqoonta iyo culunta ay ka faa'iideen halkaani ujeedadii tababarkan lagu qabtay oo ahayd kor u qaadida tayada barayaasha ee luqadda Ingiriisiga oo dhanka barista ardayda dhanka akhriska dhanka qoraalka dhanka dhageysiga iyo dhanka hadalka marka guud ahaan 10 cisho waxaan rajaynayaa inaad tababar aad iyo aad qaali waa inaad qaadateen tababarkan aad qaadateen inaad ardaydii aad u ahaydeen waalidka labaad inaad gaarsiin doontaan oo ujeedadii tababarka aad ka mid dhalin doontaan oo ardaydii aad waalidka labaad u ahaydeen inay dhanka akhriska luqadda Ingiriisiga dhanka qoraalka inaad soo saartaan arday aad iyo aad qodobadaaba ugu sareey tababarkani waxaad ogtihiin tababaradii hore wuxuu kaga duwan yahay markaad bilaabayseen imtixaan baa idinka qaaday markii uu tababarku hadda dhamaadayna post test baa idinka qaaday ujeedada laga leeyahayna waxa weeye in la ogaado intee in la eeg buu tababarkani barayaasha wax ka bedelay marka waxay noqonaysaa hadda dugsiyadii marka aad tagtaan dabagal baa jiri doona in xubin kasta bare kasta dugsigii uu ka yimiday inay dugsigii ka muuqato wixii halkan uu ku bartay baa loo baahan yahay marka dhankoodana maraan wax ka weydiinay qaar ka mid ah tababar qaatayaashii ee qaadanayay muddada 10 cisho ah tababarkaani ayay noo sheegeen inay uga soo baxayaan sidii loogu talagalay una gaarsiinayaan dugsiyadii iyo goobihii waxbarasho oo ay ka kala yimaadeen cilmiga iyo culunta ay ka faa'iideen halkaani tababarkan waxaan ka bartay classroom management qaabkii micnihii class-ka loo maamuli lahaa waxaa kaloo ka fahmay qaabkii ilmihii aan u improve garan lahaa maadada Ingiriiska micnihii aan kor ugu qaadi lahaa haddii la yiraahdana waxaan ballan qaadaynaa inaan soo saaro macallimiintii bari inaan soo saaro ayaan ballan qaadaynaa waxaan ballan qaadaynaa inaan soo saaro dhakhaatiirtii bari inaan soo saaro ayaan ballan qaadaynaa waxaan ballan qaadaynaa inaan soo saaro injineeradii bari inaan soo saaro ayadana waan ballan qaadaynaa haddaba qorshahan ayaa ka mid ah qorshayaasha lagu sii dardargelinayo culunta iyo cilmiga bulshada deegaanka sidii loo helo bulsho ka qalajabisay jahliga halka wali akhyaar ay nagala socotaan waa STV codka horumarka iyo dib u curashada intaas hadaynu kaga nimaadno wararkan idinka haynay deegaanka aynu eegno wararka naga soo gaadhaya dalka dibadiisa Cyril Ramaphosa oo dhawaan si la yaab leh ugu guuleystay tartankii gudoomiyenimada xisbiga ANC ee wadanka Koonfurta Afrika ayaa sheegay in xisbigu si hagar la'aan uu gudanayo xilka iyo waajibaadka loo idmaday warbixin murtaas ku saabsan waxa inoo eegay Ibrahim Cabdi Muuse
dhawaan ayaa ahayd markii uu ku guuleystay Ramaphosa loolankii siyaasadeed ee dhinaca doorashada xisbiga ANC ee wadankaasi Koonfur Afrika isla markaana ay dadweynaha wadankaasi si ballaaran ugu dabaaldegeen gudoomiyaha cusub ee loo doortay xisbiga ANC waxaana tartankan doorashada ee loo galay gudoomiyenimada xisbiga ANC ee wadankaasi Koonfur Afrika ku loolamaya labada xubnood ee kala xaaskii hore ee madaxweyne Jacob Zuma Dr. Dlamini Zuma iyo madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa waxa ayna guushu raacday Mr. Ramaphosa oo farciidood kaga badiyay Dr. Dlamini Zuma haddaba intii aan la qabanin doorashada xisbiga ayaa waxa wadanka Koonfur Afrika aad ugu baahay hadallo lagu cambaareynaya xisbiga ANC doorashada kadibna waxa sii xoogaystay hadallada kuteenta ee lagu cambaareynaya xisbiga ANC iyo gudoomiyaha cusub ee hadda la doortay waxaana lagu eedeynaya xisbiga ANC inuu khilaaf ka taagan yahay gudihiisa oo uu ku kala jabay maadaama uunan wax khudbada soo jeedinin gudoomiyaha cusub ee hadda xilka loo dhiibay intaas kadibna waxa bulshada la hadlay madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi Koonfur Afrika ahna gudoomiyaha cusub ee xisbiga ANC Mr. Ramaphosa waxa uu sheegay inuu xisbiga ANC midaysan yahay oo una wax khilaaf ah dhexdiisa ka jirin leadership that has been chosen is a unity leadership xisbigan la doortay ee talada wadanka haya waa mid maamulkiisu isku duuban yahay oo wada jir wax u wada qabta isla markaana ka hawlgala jihooyinka kala duwan ee dhinaca kobcinta awoodda shaqadan aan hadda ku guuleystana waa mid si anba qaadayso horu socodkayga ka xisbi ahaana waxaana looga fadhiyaa inaanu si hagar la'aana u gudanno xilka iyo waajibaadkana loo idmaday inkastoo haddaba xisbiga ANC sheegay inuu ka soo bixi doono xilka iyo waajibaadka loo idmaday haddana waxa ay shacabka dalkaasi Koonfur Afrika aad uga cabsi qabaan inayna waxba iska bedelin qaabkii hore hawlaha wadanka u socdeen sidoo kale siyaasiyiinta wadankaasi Koonfur Afrika ayaa iyaguna aaminsan inayna waxba iska bedeli doono ay xaaladdu sidan u ahaan doonto sidaa darteedna ay suuragal tahay inuu kacdoon dhasho maadaama uu dulqaadkii ka dhamaaday guud ahaanba bulshada dalkaasi Koonfur Afrika waa siday hadalka iyagu u dhigaan guud ahaan khiyaarteeda qiimaha iyo sharafta mudan intaas waxay noogu idin war wixii naga soo gaaray deegaanka iyo dacallada dunida waad ku mahadsantiin daawashadiina idinkoo u diyaar garoobaya qaybaha kale aad kala socotaan ESTV codka horumarka iyo dib u curashada aniga iyo baxdayga la qayb qaadatay tabinta warkan waxaan idinku dhaafaynaa warkan war lamid ah intaynu ku kulmi doono amaana Allah